غير idin salaamaya salan kadib halkan naga daawanayso tamisho magaca waa darsaaq waxaanu rabnaa in isweydiino su'aal muhiim ah kaba soo qaad qof ayaa raba inuu xoog kugu qafaasho ama jeclaysayba inuu adiga ku kubsado isla xaaladaas adiga ku sugan tahay cakiran waxaa ku jirta tusaale ahaan gaari ama guri ayaa lagu qufashay oo waxaa saarantaa daaqad ama mobile ayaad fursad u heshay oo aad qof ku wici karto video call qofka xaaladaas aad ugu sugan tahay ku afduubtay ama xooga ku weesan agtaada ayuu ka dhow yahay qofkaas adigoon ereyga maqashiinin sidee adiga fariintaada u diri lahayd oo qofka kale u dareensiin lahayd inaad dhibaato ku sugan tahay aad u oran lahayd bal caaw kelmadaas marka ay taagan tahay 3 second ayaan ku siinaynaa bal fakar No more screen recording videos or markaynu arrintaa ka nimaano waxaa jirta luuqada jirka calaamado la isku garto qofka inuu dhibaato ku sugan yahay qofkaasna caawinaad u baahan yahay but it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate calaamadan idin muuqato suulka la laabay afarta faroodna laga daba laabayo waa calaamad muujinaysa qofka inuu caawinaad u baahan yahay calaamada marka qofka u tilmaamtid adigoo video call kula hadlayo ama adigoo daaqad saaran ama adigoo gaari ku jiro qofkan wuxuu kaa caawin karaa dhowr siyaabadood inuu booliisku ugu waco ama wuxuu kaa caawin karaa qofkan in isaga laftigiisa uu qofka kaa dhiciyo ama uu kaa badbaadiyo ama wuxuu qofkan kaa caawin karaa inuu agtaada ku qayliyo si bulshada kale kaaga dhow ay adiga ku caawiyaan sameeya calaamadaha noocan haddii dhibaato adiga la kulantid but it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. muuqaalkana sheergaray si ay u gaaraan dadka kale as leedahay walaalaha beri way ku baxsan doonaan bal ila daa muuqaal fadlan isku day inaad adeegsato calaamadaha noocan calaamadahana waxay ka caawin doonaan xaalad walba ku jirto inuu qofka bannaanka kaa jooga uu kula fahmo haddii aad u aragta xaaladaha kuugu soo socda inay yihiin qafaal ama kufsi adeegsa calaamadan waxay ka caawinaysaa qofka kale inuu kugu caawiyo inta tabartiisa ama awoodiisa fadlan calaamadan waa calaamada keliya maanta dunida loo aqoonsado marka ay taagantahay luuqada jirka in la isku caawiyo fadlan adeegsa calaamadan oo ah suulka laab kadibna afarta farood ka daba laab waxayna kaaga dhigan tahay caawinada noocaas waxaynu maanta joognaa xilli aynu u adeegsan karno luuqada jirka adigoon qaylin fadlan isku day calaamadan inaad isticmaasho had iyo jeer xaaladda adiga ku sugan tahay muuqaalkanna waxaan kuugu soo xilna waxay tahay in bulshada kale ee soomaaliyeed aad isleedahay dhibaato way soo gaari kartaa inaynu gaarsiina adigana aad sheergarayso barnaamij midkan lamida intaynu kulmi doono daawaday sidaa iyo nabadgelyo Power here. So, just to clarify, no more screen recording videos or just delete it all, it's all fine. Everything's okay. You said to go live, so I've gone live. I've gone live, everything's fine, just saying. So, but it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. But it's pretty foolproof and it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good.